Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaasha ku xiran janalkayga kusoo dhawaada. Maanta waxaan ka hadlayaa 4 arrimood oo laga hortagi karo beer xanuunka. 4taas arrimood oo laga hortagi karo beer xanuunka waxaa ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan ee noolaha aadmiga ayuu ka mid yahay beerka. Waxa uuna qabto shaqooyinkaasi waxaa ka mid ah beerka waxa uu ka mid yahay beerka waxa uu soo deeyaa dheecaanka burburiya cuntada, in uu beerka banaanka u soo saaro waxyaabaha sunta ah ee soo gala jirka. Sidoo kale waxaa kaloo kaalin weyn ka qaata shaqada habdhiska difaaca, gaar ahaan shiididda carbohydrateska ah, borotiinada iyo dufanka dheeraadka ah ayaa uu jidhka ka saaraa. Beerka waxa uu kaydiyaa sokorta marka uu beddelo gulukoosta. Marka sokorta ku yaraato, dhiigga ayaana mar kale inta uu soo beddelo gulukoos kasoo dhigo ayuu dib ugu soo celiyaa dhiigga. Sidoo kale shaqada ay qabato beerka waxaa ka mid ah waxa uu nidaamiyaa heerka sokorta ee dhiigga. Waxaa kaloo uu beerku jidhka ku kaydiyaa fitamiinada kala duwan sida fitamiin A-ga, fitamiin B-ga iyo fitamiino kale. Sidoo kale wuxuu sii kaydiyaa macdanaha ayuu sii kaydiyaa, kuwaas oo haddii loo baahdo dib ugu soo celiyo jirka. Beerka waxa kaloo uu qabtaa isku dheelitirka nidaamka biyaha ee jirka. Sidoo kale shaqooyinka beerka uu qabto waxaa ka mid ah xinjireynta dhiigga ayuu ka qayb qaataa. Haddaba xanuunada ku dhaca beerka waxaa looga hortagi karaa 4 arrimood. Waxaa ka mid ah ama aad iska ilaalinaysaa in uu beer xanuun kugu dhaco. Waxaa sababi kara ayaa loola jeedaa cuntooyinka ku badan dufanta. Cuntooyinka dufanta ku badan waxay ka mid yihiin cuntooyinka caafimaadka bini'aadamka u daran. Sidoo kale cabitaanada alkoolada ah ama aashitada leh inaad iska ilaaliso, ayagana waxay u daran yihiin beerka ama caafimaadkaaga ayay wax u dhimayaan. Sidoo kale inaad iska ilaaliso sigaarka iyo meelaha lagu cabo, ayagana waxay ka mid yihiin waxyaabaha beerka saameeya. Sidoo kale waxaa jira talaalo ee xanuunada beerka ku dhaca, waxay leeyihiin talaalo. Haddii aad ku cusub tahay janalkayga, fadlan subscribe saar muuqaalkan, like garee una share garee asxaabtaada. Waad ku mahadsan tahay inta aad nala joogtay oo muuqaalka inala dhamaysatay.